بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa maanta qisar cajiib oo naxdin la idin sheego walaalayaal. Shalay tolo waxay ahayd xad maanta qaysniin wala wada soconaa. Waan la soconaa cimilada ku noolay dhaxantan ku noolahayna. Waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed, Islaam weyn oo hooyo Soomaaliyeed oo 8 jir markaan u daadada ku qiyaasay. Wallahi oo billahi islaantaas waxay ii sheegtay haddaan idin sheego waligiin yeelay cunto cunaysan subhanaka ya rabbi. ka war islaanta hooyada Soomaaliyeed daada leeg markaan arkay ama caruurteeda baag ku ciyaarsiinay baan taan arkay islaan saa u socoto dhibaataysan ban daba tagay way isla hadlaysay islaanta waan u tagay hooyo maxaa kugu dhacay baan ku waxay ku hooyo daadeedu wad u jeedaa maanta dhaxantaasaan socdaa caruur waan dhalay habla waan leeyahay caruurahoodii waa caruur sii dhalay maanta cidlaan ka joogaa kama rabo wax hooye raxamkii bixtaa gooyay yani mashadii ziyaaradii hooyadii ya waalidka loo tagay tiina hooyo way daayeen waan isla hadlaa waan hooyo waxaan idhaahdaa bay tiri markay yaraayeen sidoo aabood uga dhaqaaqay haddaan uga dhaqaaqi lahaa taas maanta way qabsateen iyaga u soo duloobay oo da'da u gaaro oo qurbahana aanu imi markay maanta qof walba xaas yeeshay oo caruur yeeshay baa la ilaawo guriyaha dadka weynta la dhigay wala yimaada laakiin ziyaaradii waxay ugu noqotay way yiraahdeen baryo marka dhaxanta waxaan ka baryo Ilaahay meeshaad igu aragtay hooyo inuu Ilaahay igu diro wallahi waan naxay waxaan uga jeedaa qisada walaalayaal waa barnaamijka idin soo wado idin hakin doona insha Allah ta'ala markaan hawada ku soo noqono wallahi alcadiim baan ku qofkii maanta hooyadii nooshay ama aabii nool yahay ama qof soo kariyo nool yahay ha ka faa'iideysto leena waxa jira maalintaas oo kale adna ku imanaysa caruurtaada u jeceshay waalidkaaga u jeclow waalidka waliba hooyadu iyo aabuhu isku darajad maaha hooyadu waa taan caruurteeda tuurin eena ka tigin u dulowda wallahi waan ka ooyay qisada islaamta Soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaa walaalayaal qofkii maanta hooyadii nooshahay ama aabii nool yahay ama waalidkii soo koriyo habrtii ha noqoto eedadii ha noqoto inuu ka faa'iideysto maanta chance-ka dahabiga oo waligiina helayn uuna ku tuurin islaantaas waxay tidhi caruurteedu inamadooda xaasaskoodii bay xitaa iga jeclaadeen subhanaka ya rabbil cadiim yani hooyada maanta ma ka raacay gabadheed guursatay oo 3 iskuin keento waa maya rag iyo dumar waxaan kula talinayaa walaalo qofkii maanta waalidkii ka warhayn عقوبته واعجيب والله أدونكنا واعجيب علامات شغله ما تعرفنا والدك كفايديسو وهو يدا ما أنت عدلها كويجن وحي كودرة قدام أو والله أو بالله جنادات كوجري سبب إيماجين مركي عروض هذا حنوصته أنا أسوي جددها بينكي بالكور هو ده ولا تقول لهما أف وقل لهما قولا كريما وقل لهما ربي أرحمهما كما ربي يعني الصغيرة أنت صوالد كل دار ميا برامشين إنه يصون قناة هيجي ورورينا وأنا صوص عدان إلهنا وحن كبر يا ولا خاتم خاتمنا توقفي عن كده والدكم الله حسوسته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.